Cabdulle sheekooyinkii aad uga barateen iyo waliba kusoo dhawaada channelkayga Mahad Cabdulle ama Turbashash Family. waa walaalkiin mar kale mahad. haddii aad ku cusub tahay channelkan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe iyo like iyo share kaba aad ku qabato oo markaa la wadaagto saaxiibada. anagu waxaan inta badan xooga saarnaa arrimaha bulshada, iskumana mashquulino kumana fikirno arrimaha kale hadday noqonayd siyaasadda ama qabyaaladda ama waxyaalaha kale ee aadka u foolxun ee bulshada lala wadaago. mar kale sheekooyinkeeni qeybtii saddexaad ayaan doonayaa maantana inaan idinka sheekeeyo, si markaa waxaan u baahannahay adiguna wadaage fikradahuna waa waxay ummadii horumar ku gaarto, fikradaha kala duwan. sheekadani waa sheeko runa oo sheekooyinkan ka sheekaayana inta badan waxa weeye sheeko anigoo mahad igu dhacday oon usoo taagnaa. markaa sheekooyinkan waxaa la yidhahdaa maxaan usoo joogay. faa'iidooyinka bulshadu aad ka faa'iidaysa weliga qofka Soomaaliga meel walbaad ku aragto caalamka soo dhawee wuxuunbaad ka faa'iidaysaa. maalin maalmaha ka mid a ayuu ku abaalgudayaa. taasaanan anigu aaminsanahay wadaage. waxaan tegay wadamo aada u fara badan oo Guangzhou China ka mid ah. sheekooyin baan idinka hayaa, laakiin sheekadani waxaan wadankii tegay oo sheeko cajiib leh oo markaad dhegaysataan oo maqashaan aad isleedihiin arrintani waa sidee talow. waxaan wadankii ugu horreeyey markii ugu horreysay dhinacan Somaliland aan tegay 2007. waa markii ugu horreysay aan dhinacan tago. waa June 27 2007. waxaan fadhiyay waqtiga meel dadku iskugu iman jireen oo la yiraahdo Hadhwanaag oo faras magaalada Hargeysa ku taala. waa Hadhwanaag. halkaasaa laga cashin jiray ama laga qadayn jiray ama lagu quraacan jiray. markaa waxaan usoo doonnay aniga ninaan saaxiib nahay oo reer Norway ah oo markaa xamar ka yimid oo doonayay inuu guri ka dhisto magaalada Hargeysa. ayaan ku kulannay hotelka makhaayadda Hadhwanaag. anagoo makhaayadii iska fadhina oo iska casiraynayna waa 5 galabnimo oon ku fikirayno inaan kubad soo ciyaarno ayuu iga yara kacay ninkii saaxiibkay ahaa ee reer Norway. keligii baan markaa fadhiya, koob shaabaan cabaya. waxaa ii yimid nin Soomaaliyeed oo haybad ka muuqato, laakiin aad moodo inuu daalan yahay. wuxuu igu yidhi, hebel ma adiga? kelmaddaa markuu yidhi ayuu ninkii saaxiibkay ahaa soo fadhiistay. markaasuu yidhi, labadiinna yaa reer hebel ah? ayuu ku celiyey haddana. marka anugu waan eego umana jawaabin, waan aamusee. saaxiibkaygii agtayda fadhiyey ayaa wuxuu yidhi, warkaas igala aal. wuuna kacay. isagoo markaa khaatiyaan ka taagnaa baan isiri oo anigu sidaan u qaatay shaxaadka fara badan ee magaalada marka lagu garto inaad qurbaha ka timid dee nin iska laga yaaba inuu isagu ka walwalay shaxaad. markaa wuu kacay. marka aniguna iskuma mashquuline shaahaygii baan sii watay, waanan iska aamusay. ninkii odayga mar kale ayuu i eegay. markaasuu igu yidhi, hebel ma adiga? aniguna waxaan ugu jawaabay, ninkaa iminka naga kacay waa hebel. maxaan darnaa ood ka doonaysay? markaasuu yidhi, anigu shaxaadna uma socdo, shaxaad uma socdo, umana socdo inaan idinka idin dhibo, igana raalli ahaada. markaasaan ku yidhi, saaxiga keeno. waxaan ku yidhi, haddaadan shaxaad u socon maxaa jiro, soo fadhiiso shaacab. markaasuu yidhi, shaahna dooni maayo. ma doonayo inaan shaahna cabo, ood ku mahadsan tahay, laakiin hal dhib baa i haysta, in la caawiyaan u baahanahay. markaa markuu yidhi shaxaad dooni maayo
dhib baa i haysatee in la caawiyaan doonayaa ayaan usoo istaagoon siri bal dhagayso saaxiibkaa ninkan soomaaliga ah. wuxuu igu yidhi waxaan doonayaa inaan shaqaysto, waxaan doonayaa meel halkan ah oo yaa laygu xiray $20 oo in layga dhiga ah, markaa inaan shaqaysto oon $20 la iga dhigo ama la igu dhigo ayaan doonayaa. marka kelmaddii waxay soo jiidatay aniga inaan shaqaysto ayaan doonayaa, ayaa aniga aada ii soo jiidatay, waana waxyaalaha aan aadka u jecelahay. markaasaan ku idhi lacagtan ma lacag adigu aad doonaysaa mise waa lacag shaqo, waa sidee? wuxuu igu yidhi meel la yidhaahdo indho deero bakhaar, indho deero la yidhaha ayaa $20 dhigaa, markaa waxaa lagu soo gelinayaa jaakad wax walba haya ah, marka waa dukaan soconaya, laakiin jaakad baa lagu xirayaa xaggan dambe iyo xaggan horeba. halkan waxaa lagu dhejinaya waxaa weye qalin, cidiya gure, shalle ama ganfeer hadba sidaad u taqaanid, wax maqas, muraayad ookiyaale, saacad, waxaasoo dhan oo $20 ah ayaa lagu soo surayaa. markaa wixii aad soo iibiso mooyaane wixii kale markaad soo celiso waxaa lagu siinayaa intii adiga aad soo iibisay oo profit ah ayaa lagu siinaya, laakiin $20 deposita lagaa dhigaya. waxaan aad xiran tahayna waa $20 ee markaa kuu saaran, marka waa bullet proof oo kale. markuu sheekada iiga sheekeeyey, magaaladana shaxaad mooyaane wax shaqo ku weydiinayaaba ma jiro iyo meelaan ka shaqeey, dadkuna waa wada shaxaad waktiga ah, oo ma jirin ganacsigan hadda buuran ee maasha allah magaalada meel walba ka jira. ninkii odayga ahaa inamare baan ku idhi aniguna dabeecad baan leeyahay, lugtaan jecelahay, waa 5:15 markaa. waxaan hubsanayaa inay runtii tahay inay beentii tahay, ma doonaya lacag inaan siiya anigu. waan israacnay suuqan, waaxeen baan dhex marnay, waan dhaafnay ilaa iyo xoogaa baan soconnay. meel buu igeeyey bakhaara. bakhaarka markaan usoo socno 3 tallaabo iga horeeyo ayay 2 nin ku qayliyeen. ilaa ninkani mar walba meesha wuu yimaadaa, wuu weydiistaa, way u diidaan. waxay ku yidhaahdaan qofku garanayo damiina ken, waayo ma laga yaabaa markaana waxaan isiri dad badanoo waxa jira markaa ka cararay oo malaa ayaan isiri anigu. markaa hangool buu qabtay, waar hoy naga joog. si xuna weliba ayay ula hadlayeen, maogtahay, naga joog, kaagan ha nagu soo noqonin, maogtay. laakiin markan waxaa la socda nin damiina. meeshii baan soo galay, waxaan ku yidhi istaaga, maxaad haydeen? anaa la socda, maxaa jira? markaasi wuuna wareeriyeyo waxbuu maalin walba wuxuu yidhahdaa alaabtan isiiya waan idii soo celinayaa. markaasaan ku yidhi qofku waa bani aadinka, waa la aaminaa, miyaad aamini kari weydeen? markaasuu yidhahdeen aaminkii waan ka quusanno, dad badan baa na wareeriyo, been noo sheego, lacagtii markaan waxaan u surnay inay si iibiyeen nagala baxsaday. markaa waxaan doonaynaa $20 ee u gashan yahay inaan deposit aan ka hayno. sheeko waxay igu noqotay cajiib leh. ninkii waan soo fariisiiyey, iyagii waan u fariisiiyey, waxaan ku yidhi $20 waa kan, laakiin waxaan doonayaa aniga iyo ninkan inaanu ganacsi wada galno, oo 20 anaa iska leh, waan amaahiyey, 20 ma siinayo, waan amaahiyey. waxaan u baahanahay 20kayga naftirkayga inuu ii soo celiyo waktigaa uu ku ganacsanayo markaad aamintaan. markaas way yaabeenoo waxay yidhaahdeen, anigii bay markaa igu soo jeesteenba, warkaagan kelmadaasu igu yidhi, weli ma ilaawo, warkaagan fakriga ee bakhiilka ah $20 baad siinaysaa, maxaad maskiinkan ka waalaysaa? markaasaan ku idhi, oo adigii uu ku yimid oo 2 bilood ku daba socday, adigii uu 2 bilood ku daba socdayba waad ka diidaye, maxaad aniga iigu khasbaysaa? maxaad adigu u siin weyday? markaasay aamuseen. $20 baan ka dhigay, waxaa loo xiray bahalkii. isagii waxaan ku idhi 20kan waxaan doonayaa inaad ii soo celiso. wuu farxay, wuxuu igu yidhi ballan wey, waa kuu soo celinayaa, aad baad u mahadsan tahay adeer. waa nin markaa dhalinyaro ah, magaaladan cidna kama yaqaano, marka wax yar buu joogaa. waana waqtiyadii ay etoobiyaankii iyo dhibaatada ugu weynee magaalada muqdisho laga wada yimid inta badan, oo etoobiyaankii ay joogeen marka ay soo galeen, oo dagaalo fara badan ka socday. isna wuu
وكيميده وحيصير بالماشن كشقيسو أما جوج مركا وكو عاجسي وحيصير شقيسو ما ها نين كبريو ماشن قاضعونه يعني نين سو شقة تجيوي نينكي وضيعها labaatankii baan ka dhigay wixii sugalay halkaasaan ku xiray sheekadiisa waan ilaaway waan iska soo dhoofay Norway baan imid waa 2007 markaa 2008 waan tagay kama warhayn 2009 baan anigoo makhaayadii harwanaag fadhiya buu ninkii odayga ahaa maskaxdayda ku soo dhacay wow $20 iyo ninkii odayga ahaa marka curiosity ahaan aniga ayay waxay ila noqotay bal ninka odayga ah inaan meesha ku dambeeyay miyuu noqday miyuu joogaa miyuu khasaaray waa iska curiosity ayay igu noqotay inaan bal ka warhayo marka lambarkiisi baan baarbaaray waxba maan hayn waxaan tagay meeshii waxaa lagu yiri ninka ahaa nambarkiisu waa kan markii baa wacay yuwaran nabad ma sha Allah ma garanaysaa maya waa ninkii 20 ku siiyay Norway ma hadda waay ma sha Allah waxaan joogaa buu igu yiri airportka ayaan ka joogaa airportka Hargeysa marka waan soo lugeynayaa saacad baan soo lugeynayaa streetkaas wax ku iibinayaa waa inoo iyo markaasaan ku yiri imka waan noqonayaa galabta 6 maqribnimo isku keen kaasuu yiri waay waan iska tago lambarkaygana waan siiyay way soo wacay markaas waan isku nimid ninkiyo carry-on ama gaarigacan ayuu markan jiidayaa gaarigacanka 3 dabaq waxa ku jira alaaba way buuxdaa hoosna gaarigacanka hoostiisana waxa yaala intii reserve wixii alaabtii xagga sare waxa yaala sambalis muraayad okaale cidiya gur maqas waxa soo xagan ku haya xagan hoosna alaabtii baa ku jira markaa koon waa tusaale laba wuxuu samaystay biroodo iyaduna ay ku taxan yahay muraayado iyo wax kale qurux badan warniyo iyo waran baan ku leeyahay xaalkii 2 sanadood ismayn arag wuxuu igu yiri lacag $350 oo deposit ana waan haystaa 20kiina waan iska bixiyay guri yaro $15 qol aan inaan la galana waan deganahay oo ku yaala xagga iyo حرا أور ميل يرادو fair enough ما شاء الله صدق بقولي كنت ما تست هاي مركا الحمد لله دو سيدي بانو وضع حوشة وحكاسان كويرا 20 كيجي حاي قدر سمي ويقول 20 كاجي $8 با قدر سمي $20 أيات هيستا واي وحن كويرا $20 كيجا دولار واحد يقول دريسا lacagtan meesha ku jirta ma sha Allah markay ii ururto anaga isku iman doona sidii baan ninkii uga tagay 2013 marka 2009 baa igu dhameysay 13 ayaan Hargeysa ku noqday nambarkiisi sidii baan u wacay wuxuu igu yiri waxaan joogaa Xera Awr waan iska daayay bahalka ujiiday marka wuxuu furtay kiosk qol yar oo alaab ka buuxdo meeshii baan ugu tagay meeshii markaan ugu tagay waxaa ka soo baxay mudul yar halkana waa qol yar oo baraakad laga sameeyay oo in yar uu ku dhex jiro iyo hal nalo solar yar ah ayaa ugu jira gudahana alaab badan baa yaala markaa sambuusna waa xagga hore lagu iibinayaa waxaan ku yiri warwarkaysi iyo ma sha Allah soodigan wuxuu igu yiri $800 ayaa alaabtan igu jirta halkan $450 reserve baan u haystaa laba carry-on gacan oo carry-onna uu ii shaqeeyaa oo laba nin baa ii wada oo midna airport ku joogaa midna wuxuu joogaa dhinaca kale New Hargeysa wow 800 adigana waxaan ku hayaa $90 markaas 9 iyo waxbu ayuu igu yiri ayaan ku hayaa waa lacag badan $90 ayaa 20kayga iga dhashay maaha marka rent maaha waxa weeye macaashkii lagu shaqeynayay shaabu igu casuumay laba xabo sambuus baa meesha la soo dhigo ka tuuray koob kale shaadalaya oo udgoon iyo khumkhum laan ka tuuray inan baan noo keenaysay markaasuu igu yiri heblaay kaalay way timid wuxuu yiri xaaskayga way waan guursaday
ilmahan yarna iyada ay haysaa maasha allah goormaad guursato 2 sannadood ka horo ilmahan yarna waa haysaa iminkana maasha allah uur bay leedahay wow unbelievable sidii baanu mar kale ku kala tagnay 2016 ayaanu is aragnay sidii baanu u wacay markan gaari yar oo kooban oo kuwan la yiraahdo dukhaan iyo waxbay yiraahdaan buu wataa xagga dambana wuxuu ku iibiyaa geedo flowers ah yani flower kaliya ma geedo yaryar buu guriga ku abuuraa oo ay soo baxaan markay yara koraan wuu iibiyaa $3 $4 $5 gurigii waa laga guuray guri yaroo kaloo daara 2 qolaa la degay 3 caruura ilmo kale kasii dambeeyay 3 caruura ayuu haystaa 2500 deposit ayuu haystaa baabuurkan buu haystaa $400 iyo $500 baa wuxuu yiri bishii $550 profitka marka laga saaro wax walba aan bixiyo shaqaalaha aan siiyo 3 shaqaalaha u shaqeeya gabar kaloo sambuuska u dubtaa u joogta xaaskiisa way la shaqeysaa $40 oo wuxuu igu sii hadiyad ah ayuu horta isiiyo bacdi yar inuu igu soo dhaafo yiri 40 kan ana kugu talagalay waan qaadanaysaa makhaayadana waxaan ka soo cunay yaman buu igeeyo cunto macaan bacbu igu riday xishood qab $40 ayaan ka helay markaasaan waxaan ku yiri hebelow maxay waxaad samaysay markaasuu yiri waa hadiyad anaana kugu talagalay hadiyadana waa la qaataa kana raalihow inta in ka farxad $40 ma sha Allah waxay baa iga soo saartay ba hotel habeen ku seexday Berbera ayay iga saartay ninkii odayga ahaa 2018 2019 mar walba oo wada ka feynaynay xamar buu tagay went back to Muqdisho isaga gurigana islaantiisii iyo nin kala hayay he started small business waayo Muqdisho is booming haddana waqtigan wuxuu ka soo furay ma rumaysanaysaa miitina waaweyn ayuu wuxuu la gelayay dadkan soo xawila arrimaha ugu badan hadday noqon lahayd dharka hadday noqon lahayd ayuu wuxuu ka qayb gelayaa ninkaasi waxaa lagu casuumayaa meelo badan oo kulan ah oo uu ka qayb galayo soo dhageysanayo doonayo inuu businesskiisa horumariyo meel 200 buu ku darsaday meel 400 buu ku darsaday kaarar buu iibiyaa wuxuu iibiyaa telesom maxaa la yiraahdaa bahaladan xawilada lacagaha exchange-ga lacagaha oo ah markaa telesom hormood waxaa soo dhan ayuu mobilkiisa mid xamar jooga iyo mid hargeysa jooga ku kala iibiyaa oo markaa waa nin caanaba ma garanaysaa $20 maanta waa middle class not upper middle class waa nin middle class muxuu middle class u yahay dhibaatada jirto waxaad arkaysaa Soomaaliya waxaad arkaysaa meel walba ama Somaliland meel kasta ahaatee waxaad arkaysaa nin lacag badan soo galaysa oo faqri ah maxaa yeelay wuxuu kharash gareeyaa ayaa ka badan wixii baa isku miisaaman waxbaa soo galay wuxuu kharash gareynayaa wixii oo dhan ninkani wuxuu kharash gareeyo ayaa yar wuxuu cunaa wadani bishii ama wiigi ayuu hilib yar iyo wax yar khudaar cunaa inta kale caafimaadka reerkooda ka muuqda ma rumaysanaysid maxaa yeelay wuxuu cunaa cunto wadani ah wuxuu dhaqaalayaan u kibrin meelaha ugu jaban ayuu ka soo iibsadaa u kala yaqaano dukaankiisu ka iibsadaa dacaskiisa ayuu dukaanka dhexdiisa ka iibsadaa nin kibrayo ma aha fatosho in walka dhaqaaqo suuqayada weyn taga oo maarad meelaha fadhiista may haddana dadka wuu ka qurux badan yahay wuu ka habaysan yahay wuu ka dhisan yahay wuu ka wanaagsan yahay waxay mar kasta ii tahay ninkaasi inaan tusaale u soo qaato waxaan ku iraahdaa thank you ilaahay baa mahadle inaan ku bartay ilaahay baa mahadle maalinta ay ka tusay ilaahay baa mahadle ninkii ila socday maalinta inuu ku yiri igala aal sababta uu ninkaasi u leeyahay nin xun maaha waxa uu daaray laakiin aniga ilaahaygii i tusay ayaan maanta ku faraxsanahay waxa kale oo ku faraxsanahay inuu berrito gacan qaban doono haddaan berri u baahdo caruurtiisii isaga iyo waxoo dhani in ay gacan qaban doonaan inay midigtayda aan ku istaagay noqon doonaan waxaan aaminsanahay haddaan $100 ama $200 u baahdo markiiba inuu bidixda iga soo tuurayo taasaan aaminsanahay ninka maanta inuu tagay meel waqti hore ugu dambeysay
business ka sameeyeen muqdisho boomid ka ah ya mar dhaweyd baan wada hadlayna waxaan ku yidhi sheekadaada waa inaan soo qaataa weliba waxaan ku yidhi iyadoo t v in lagaa sameeyo weeye ayaan ku yidhi oo dad badan oo markaa filimaadka sameeya oo hargeysa jooga aan kugu soo xiro ama xamar oo markaa ay ku waraystaan ooy inkastuu iska necab yahay dadkan siyaasadna ma galo t v iyo kamarad iyo waxaa riwaayadaas ma yaqaano wuxuu la dagaalamayaa wuxuu ku jiraa jihaad soomaalidu jihaad wuxuu yaqaanaa kii xabadda wuxuu ku jiraa jihaad ah in uu noloshiisa iyo wanaagiisa iyo ixtiraamkiisa iyo dulqaadkiisa iyo dadladhaqankiisa iyo ganacsigiisa iyo waxaas oo dhan uu ka sameeyo uu la jihaado salaadiisa ixtiraamkiisa dulqaadkiisa ismaqalka bulshada kala dambeynta wada hadalka bulshada wuxuu yahay dhagaysto wanaagsan buu noqday oo dadka dhagaysta markaad dhagaysto wanaagsan noqotona waxaan ku aaminsanahay in horumarkaaga uu noqonayo horumarka caalamka ugu weyn wadaaga haddaba ku dayashada ninkaasoo kale inaad gacan qabatid adigu haddii aad ku aragto meel walbaad caalamka joogto meel walba uu ku yidhaahdo nin hadduu nin ku yidhaahdo waxaan usoo taagnaa maalin aan isku raacnay 2016 iyo 2018 aan isku raacnay nin caqliga ninkaa ku jira oo isagu dhexdhexaadinayo wuxuu ii yeeray igu yidhi mahadow haddaad waqti hayso nin ayaa i dhibay waxaan doonayaa inaan ninkaas u tagno bal xalino muxuu sameeyey caqliguu ninkaa sameeyey nin baa wuxuu ku leeyahay isagiibuu ku leeyahay taajir baad noqotay $5,000 oo business ku bilaabo keen lacagtuu haystaaba accountu ugu jirto wuxuu haya $2,500 oo safe ayuu hayaa inta kalena waa intii isla dhaafkaysi wuxuu ku yiri 5,000 isi wuxuu sameeyey caqli $50 buu u dhiibay wuxuu yiri 50 soo hayso waa inoo bari ninkii 50 u dhiibay 50 ayuu meesha ku laqay maxaad buu tagay meelahaas uu tagay qaadna uu ka cunay hadhow markaan aniga iyo 3 kale nimidoo saaxiibanahay yar filan ku jira yar markaan la fariisanay ayuu yiri bal ninkan dhageysta ayuu yiri ninkan waxba ima taro 5,000 business aan ku bilaabo de waxay sheekadii Soomaalida moogta Maryoolay wuxuu ku yiri qalniya warqad buu soo qaatay cajiibka wuxuu yiri 50 shalay ma ku dhiibay ha ii hay ma ku yiri ha qalniya warqad buu soo qaatay wuxuu yiri 50 ka waxaad ku samaysay ii sheeg haddaad doonaysa 5,000 wuxuu ma 50 baad isaysan 50 ma lacag baad qaad baan ku cunayo sigaar baan ku cabayo hebel baan ku tagnay hotel hebel ayaan fariisanayo 50 ma lacag baa marka dadkii baa wada yaabay moogta war ma nin 50 shalay ku dhiibayo marka uu ka raayay wuxuu yiri 50 kan noo sii hay ma waran 50 kan qaado wuxuu yiri 50 kan noo sii hay that's the problem moogta soo qaayay de waanu yaabno xalay ma ninka 50 ka kaliya kugu aamini waayay ee 50 kii cuntay ayaa 5,000 kugu aaminaya marka isagii baa xataa xishooday marka wuxuu ku yiri $50 ii soo celi imika aqlibu ka wata mid ma uu hubaa inuu markaa 50 kaasi soo noqonaynin la soco ninka odayga oo soo noqonaya inuu yiri waan weynaba markaasuu noodeego wuxuu yiri intaan doonayay 50 kaas inuu iga baxaan doonayay inuu dibna igu soo noqon marka waa nin ka fikir dheer meelahan dadkan taagtaagan $50 oo awoodin isaga wuxuu ku leeyahay waligay keligay maan cunin $50 reerka iyo maalmaha iidaha ayaa $30 $40 meelaha wanaagsan oo dhar wanaagsan oo koobiyo top ah ayuu ku soo iibsadaa marka wadaaga isku soo duubka sheekada waxa weeye qof waliga qof ku yiraahda $100 baan business ku bilaabaya haddaad haysasii waa runtii ninkaas laakiin qofku yiraahdo 5,000 iyo 10,000 iyo 20,000 iyo intaasaan ku bilaabaya business baan bilaabay waxba kama jiraan businessku haddaad doonaysid $50 baad ku bilaabi kartaa waxay ku xiran tahay marka hore idea la kaalay fikrad keenso fikradaad keensato ka baaraandeg keligaa fadhiiso endiga bilowga ilaa meesha ugu dambaysa gaar waa laga yaabaa inaad khasaarto laakiin waa tijaabisay way kala duwanta laakiin $10,000 baan business ku bilaabayaa iyo $20,000 baan ku bilaabayaa ninkaas waxba kama jiraan haddaad reer hebel iskugu tagaysaan waa benti ha tarina wax kaa 50 idi weydiiya ama 200 idi weydiiya 5 qofood 50 iskugu dara siiya ninkaas waa runtii
he knows the business that guy ama qofkaasi markaa laakiin qofka ku yiraahdo 5,000 iyo 10,000 waxba kama jiraan tusaale wanaagsan buu ninkaas u yahay bulshada Soomaaliyeed wax badan buu ku soo kordhiyaa dad badan buu isu keenay isbaray xidid buu noqday xidid iyo xigaal buu noqday ummadda afarta geesood buu isu keenay simple waa inta lagaga baahan yahay kaliya dadka wanaaji qurxi ixtiraam dulqaad iyo dhageyso ma sha Allah July labadeedan tagayaa wadankii iyadoo live aan idin ka soo duubaya inaan idin hor fariisiyo idin raado this is the guy runtii I'm a proud awo kala markaan ka sheekeynayo waxaan dareemaa farxad maxaa yeelay waxay ii noqonaysaa aniga tusaale ninkaas oo kale in aan wax daray ii noqonaysaa $20 inuu maanta upper middle class yahay middle class sheekada waa intaa waxaa noo soo socda ninkii Norway 25 sano qaad cunayay oo la waayay 4 sano xirnaa inuu soo istaagay yiri waa noqonaya dawladda Norway baasaboorkeedu celiyay haligii wadankaygii waana mahadsantiin oo lagu yiri ma sidaas 3 bilood oo lacagan kugu soo diraynaa xagga isdabar maanta waa upper middle class maxaa yeelay halkan markuu ku fashilmay meel kale u tijaabiyay waan ku faraxsanahay inaan ka mid ahaa dadkii 40 gaariyo gacan ee uu soo ku fikray aan Guangzhou China uga soo diray sheekadaasna way soo socotaa iyo maanta upper middle class inuu isna yahay dadka ugu sareeya ee ladan ee ma sha Allah ilaahay uga badbaadiyay 25 sanadood ee uu godka ku jiray qaad iyo balwada kale oo imika aan arabaabay ee uu habeen inuu soo istaagay soo rafayiri waan ku fashilmay halkan inaan noqdaan raba waligaa meel haddaad ku fashilanto waa laga tagaa arsaaqada ilaah baa bixiya a'uudu billahi minash shaytaan rajiim baa la yiraahdaa markaasaa la socdaa awooyaasheen sanaadi way socon jireen Sudan Yemen Nasraan Jidda Saudi Arabia Nasraan ayay socon jireen ilaa iyo Ingiriiska ku tageen Israel hatta dhulkan Palestine ama Israel iyo Palestine isku yiraahdo ayay mari jireen ilaa ay ka tagaan Greek iyo meelaha kadibna ay wax soo noqon jireen doomo maanta oo adduunka globalization yahay meeshaad ku fashilanta ka tag ha isku lumin waqtiga ha ku lumin ka tag laakiin markaad ka tagayso waa inaad isbedeltaa tiraahdaa afka Norway oo qalaad waxa lagu yiraahdo I want to change why not wadaaga hadalkii aan ku daalinin waa maalin axada maanta 29 bisha 12 laba cisho haray happy new year 3 cisho kulligeen waxaan ilaahay sanadku haydii wacnaada ilaahay ka soo socda barwaaqo iyo wanaag iyo raxmad iyo ixtiraam iyo ismaqal iyo wadankeena ma sha Allah ilaahay dhibta ka saaro meelaha qaar aad baan idin salaamayaa walaalkiin mahad Cabdulle oo idile isma dhaafno haylaawin sheekada kalena inaad la socoto mida kale qaybi barnaamijkan oo la wadaag saaxiibada oo ku oro maanta ku qaybin maayo kuwii soo yaacay aytami jireen waxaan qaybinayaa ku positive wada oo natusaya mustaqbalka barito shadarag ya salaam aad baan idin salaamaya khayr baan isku warnaa sidaa iyo nabadgelyo